السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن أقيارتا قيميقا قدرينتا إي شرفتا إناغا مدن كوحيدان جانل كاريحان جانل كوسو دوادا مركالي إيو موقال كالي أو عصب intaan muuqaalkeena u guda galin marka hore waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak meel walbo adduunka ka joogtaan dadweynaha ku xiran janalka waxaan idin leenahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ramadaan mubaarak alla naga dhigo kuwii ka faa'iideysta camal wanaagsan sameeya bishan barakeysan ee ramadaan dadaal badanna ku bixiya sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen bishan ramadaan waa tahay muuqaalkeena ayaan guda galaynaa oo maanta ama caawa oo ah habeenimo jimco ay soo galayso khamiisna ay sii baxayso bishuna ay ku asteysan tahay 24-ka ama 23-ka aan yiraahdo 23-ka bisha maarso sanaduna waa 2023 casharkeena ayaan u guda gali doonaa casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay waa wada sheekeysi ku baxaya luqadda carabiga waxa uuna wada sheekeysigan u dhaxeeyaa Ciisa iyo Yuusuf ayuu u dhaxeeyaa Ciise waxa uu yiri laqad ta'akharta 'ani al-'amali maada asaabaka laqad ta'akharta niyahow waad ka soo dahday 'ani al-'amali shaqadii ama hawshii waad ka soo dib dhacday maada asaabaka maxaa ku helay shaqadii waad ka soo dib dhacday maada asaabaka ma bika way maxaa ku helay maxaa ku dhacay Yuusuf wuxuu yiri macadiratun iga raali noqo sayidii mudanahaygiyo macadiratun sayidii iga raali noqo mudanahaygiyo tani way dhacday ku laabo maaye iga raali noqo mudanahaygiyo laqad ta'akhartu sababtii ayuu sheegayaa markaa oo dib ugu soo dhacay hawsha laqad ta'akhartu waxaan ku daahay cala nawmi hurdadii ayaan ku daahay laqad ta'akhartu cala nawmi hurdadii ayaan ku daahay Ciise waxa uu yiri hadalkan waxaa sii wata Yuusuf waaye al-laylatul maadiya Yuusuf ayaa hadalkan sii wata Ciise waa qaladkan kuma qoritaanka aan ku qornay waa qalad hadalkii waxaa sii wata Yuusuf waxa uu yiri al-laylatul maadiya xalay lam astadic an-nawm hurdo waan awoodi kari waayo lam astadic an-nawm waan gam'i waaye oo hurdo waan kari waaye bisababi jiiraanina sabab la xiriirta dariskayaga sabab la xiriirta dariskeena ayaan la hurdi waaye oo hurdo aan la gam'i waaye xalay taa ayaana sababtay in aan saakay hawshii aan ka soo dib dhaco Yuusuf markaas waxa uu yiri maada facala jiraanuka dariskaagu maxay sameeyeen maada facala jiraanuka oo dariskaagu maxay sameeyeen Ciise markaas wuxuu yiri tashaajara rajulun wa zawjatuhu tashaajara waxa dooday oo murmay isqabtay rajulun nin iyo zawjatuhu afadiisi nin iyo afadiisa ama ooridiisa ama xaaskiisii ayaa isqabtay oo murmay oo dooday thumma dabadeedna taqaatala way dagaalameen oo way dirireen murankooda kadib mimma adda taasoo keentay oo dhalisay sakbul mar'ati in haweeneydii ay ku rushayso oo ay ku shubto almaa saaqin biyo kulul inay ku shubto cala rajuli ninkii mimma adda taasoo sababtay oo keentay oo dhalisay sakbul mar'ati haweeneydii in ay
ku rushayso ama ay ku shubto almaa assaakhin biyo diiran ama biyo kulul in ay ku shubto cala arajuli ninkii wakasra arajulu ninkiina in uu jebiyo ama wuxuu jebiyey asnaana almar'ati ilkihii haweeneydii naagtii ilkaheedii ayuu isna jebiyey oo dhibkaa ayaa dhacay waay oo haweeneydaas iyo ninkeedii ama wadaadkeedii ayaa isqabtay xalay kadibna dhibkaa ayaa dhacay waxayna ahaayeen dad dariskeyga buuqa iyo rabshadaas iyo xalintoodii ayaa xalay la hurdi waayey xalkoodii ayaana ku baxay maadaama ay yihiin dad dariskayaga ah yuusuf wuxuu yihi markaasi naxnu fii shahri ramadaana inagu waxaynu ku jirnaa bil ramadaan naxnu fii shahri ramadaana inagu waxaynu ku jirnaa bil ramadaan oo ah bil cibaado in la cibaadaysto oo laga faa'iidaysto ay ahayd murankan iyo buuqan isqabsigan oo meeshaba ka baxo limaada bada'at xarbuhum muxuu ku bilowday dagaalkoodii xilligan in la isqabto ayuu la yaaban yahayba yuusuf markaasoo waxa uu yihi limaada bada'at xarbuhum dagaalkoodii muxuu ku bilowday maxay isku qabteen waay labadaani qofood maadaama yihiin dad lamaano ah oo nolosha wadaagaya waxa ay sidaa isugu galayaan oo biyo iskugu shubayaan oo ilkaha iskaga daadinayaan waa maxay dagaalkoodii maxa uu ka bilowday ciise waxa uu yidhi haadihi alcaa'ila malcuuna qoyskani waa qoys inkaaranba haadihi alcaa'ila qoyskani ama usradani ama jeeskani waa kuwo inkaaran oo lacnadan laa yacrifaani ramadaana garan maayaan kuwa qoyskisana dhib badan buu ku qabaa maadaama daris ay yihiin oo ka hurdi waaye shaqadii uu ka tegi waaye dhib badan buu ku qabo marka waxa uu yihi isagu xanaaqsan haadihi alcaa'ila malcuuna jeeskani ama qoyskani waa kuwo lacnadan oo inkaaran oo dhib badan waaye laa yacrifaani waxana kama yaqaanaan waaye ramadaan waxa uu yahay gabaran maayaan inay cibaadaystaan oo ay soo jeestaan oo dad wanaagsan oo nabad iyo heshiis wada nool inay noqdaan iskaba dhaafe ramadaan iscafi maayaan waaye waxna ka garan maayaan yatajaadalaani way doodaan wayatashaajaraani way murmaan oo way isqabtaan kula leyla habeen walba doodoodii iyo murankooda isqabqabsigooda iyo dirirkooda iyo dagaalkooda unbaa taagan habeen walba dhibkaa baa jira waay oo nahaysta yuusuf waxa uu yihi marka hal xalalta adigu ma xalisay mushkilatahumaa dhibtoodii ma xalisay waay al-aan hadda maadaama aad ku baxday oo shaqadii aa kasoo dib dhacday hadda ma xalisay hal xalalta ma xalisay oo xalam u heshay mushkilatahumaa dhibtooda iyo murankooda iyo dhibkoodaba isqabsigooda ma xalisay al-aana iminka ciise waxa uu yihi markaa kilaahumaa xallaa mushkilahimaa kilaahumaa labadooda ayaa xaliyey labadoodii ayaa xaliyey mashaakilahumaa mushkiladoodii iyo dhibtoodii adawiila alamad ee muddada taagneed muddada jirtay waay dhibkoodii muddada jiray labadoodin baa u xaliyay haddana labadoodii ayaa dhibkoodii xal u helay oo muddada soo jiray waa dhibkaa oo muddo soo jiray macnaha in muddo bay is haysteen waay ayaga unbaa xaliyey yuusuf markaas wuxuu yihi kayfa xallaa oo siday bay ku xaliyeen mushkilatahumaa mushkiladoodii dhibkooda sidee bay ku xaliyeen ciise markaas isagoo ka jawaabaya waxa uu yihi dallaqa arajulu ninkii ayaa furay almar'a haweeneydii dallaqa arajulu ninkii ayaa furay almar'ata haweeneydii ayuu furay oo xaaskii waa uu iska furay wadafaca waxa uuna siiyey oo bixiyey mahrahaa maharkeediina gacanta ayuu u geliyey oo waa uu diray ninkii ayaa naagtii furay meherkeediina waa uu siiyey anna markhaati baa ka ahaa sidaa baa dhacday oo xalkiina sidaa buu ku yimid waa hagaag intaana ha inoo joogo cashirkeenii koobnaa ee ku saabsanaa luqadda carabiga
intaynu muuqaalkan ama cashirka xiga aynu wada kulmi doono dhammaantayadaba waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinaba sidaa iyo nabadgelyo is arag dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh. nabadiino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.